السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وتحريه أن أرجو السافلين حلقة دي تضبية طبناد حكتيسي الذهب كأي يهودا. waxay waaweynkayagu ogaadeen meeshii ay aabayaashayadii hore ku qariyeen dahabkii ay haysteen markay soo weerareen baabiliyiintu waxayna ku aaseen falastiin gaar ahaan buurta macbadka hoosteeda. kadib waxay qorsheeyeen waaweynkayaagaasi inay dahabkaas la soo baxaan waxayna iska dhigan koofiyadihii lagu yaqaanay yuhuudda ee yaryaraa waxayna xidhan koofiyado xadiida ama halmadkii dagaalka waxayna muujisteen inay jecel yihiin kiristanka iyo ciiseba ayna aaminsan yihiin waxayna kiristanka ku qanciyeen inay ku duulaan falastiin oo soo ceshadaan dhulkoodii muqadaska ahaa waxaana la soo qaaday dagaaladii mactableyda. yuhuuddaasna waxaa laga dhigay urur la yidhaahdo fardooleyda macbadka ama fursaanul macbad ama knights templar waxaana qayb laga siiyey masjidka aqsa oo ahalkii ay doonayeen ee dahabkuba ku aasnaa. sidaas ayayna xisaabahoodii isugu toostooseen. markii ay halkaas ku hubsadeen fardooleydii waxa ay bilaabeen qoditaan ilaa ay gaadheen kayda dahaba oo la yaab leh waxayna sidoo kale ugu tageen buurtaas arrin muggiisa leh oo ah sixirkii madoobaa ee kabaala. kadib awooddaas aanu helay iyo hantidaasi waxay naga dhigeen ururkii adduunka ugu mudnaa waxaana aanu howlgalkaygii ahaa inaannu hanano dahabka caalamka yaalay u sii anbaqaadnay qaab ah inaannu fardooleyda macbadka u adeegsano inaannu safarleyda iyo ganacsatada dahabkooda u kafaalo qaadno iyagana aanu siino warqadaas naqdiga ah ee aanu annaguba ku tacaamuli jirnay waxaan markan lacagta u qaadi jirnay ganacsatada iyo safarleyda iyo boqorradaba. waxaannu sidoo kale aasaasnay hanaan ah inaannu dadka amaahino hanti dulsaarna aanu kaga soo ceshanno annaga ayaana aasaasnay nidaamka bangiyada ee ay sheegtaan kiristanku inay sameeyeen fardooleydoodii macbadku oo dee fardooleydaas macbadkuba annagay ahaayeen. kadib boqorradii kiristanka ee aanu hantida badan dayminay waxay ogaadeen cibaadooyinkayagii dadbanaa maadaama aanu deyn mugle ku lahaynna waxay damceen inay annaga iyo deenkayagaba tirtiraan waynanu gubeen annaga oo nool balse kuwaas ay gubeen waxay ahaayeen yaryarkaygii ardayda ahaa waaweynkayagiina waxay dahabkii ula baxsadeen dhanka Scotland. halkaas ayaanuna ka bilownay safarkaygii u dambeeyey ee aanu ku urursanayno dahabka caalamka yaala. kadib waynu iskaga baxnay fakarkii ninkaas yuhuudiga ahaa si aynu waaqaca iyo dhacdada dhabta ah ee uu sheeganayo inay bilaabeen marxaladii u dambeysay ee ururinta dahabka uga gungaadhno. marxaladaasina waa tan aynu hadda ninkan ugu nimi ee ah inay dadka dahabkooda ka qaadaan oo siiyaan warqadahaas qofkaasina meeshii uu joogaba warqadahaas ku macaamilo. aakhirkiina way ka horumareen magacyadii Radianite iyo Knights Templar waxayna la baxeen merchant bankers ama ganacsatada bangiilayaasha waxayna qaban jireen waxyaabaha ay bangiyadu hadda qabtaan oo dhan iyaga ayaana aasaasayba. waxay bangiilayaashoodaasi isu qaybiyeen qolo wax amaahaysa oo la tacaamusha beeraleyda iyo ganacsatada yaryar iyo qolo wax amaahaysa boqorrada waxaana kuwaa laga dhigi jiray maamusleyda boqorka ku xeeran ama nobles waxaana loo ogolaa inay shareecadooda yuhuudeed siday doonaan ugu dhaqmaan iyadoo yuhuudda kale oo dhanna loo diidan yahay. kuwaasna waxaa la odhan jiray koorta jiyuush ama yuhuudul balaad ama yuhuudda madaxtooyada. haddaynu tartiibino sida ay sheekada dahabka ururintoodu kusoo bilaabantayna waa ganacsatadii safarleyda ahayd ee Radianite qoysaskii yuhuudeed ee hantiilayaasha ahaa ee Rakistos fardooleydii macbadka ee Knights Templar ganacsatadii bangiilayaasha ee merchant bankers iyo yuhuudda madaxtooyooyinka ee court jiyuush. kadib waxaa yuhuudda kaartidoodii ku baraarugay caalamkii oo dhan waxaana laga eriyey waddamadii caalamkaba waxaana laga eriyey ingiriiska faransiiska jarmalka switzerland hungary austria spanish burtuqiis bulgaariya holland ukrainiya iyo Poland. mar laba wada caydhin ee hadbadal ayaa laga eriyey waxaana eriyanayay shucubtii deegaanadaas oo ay ku adoonsadeen deymo iyo ribo iyo la macaamil xumo. dowladihii ayaa nacay oo ay ganacsigii dalkaba gacanta kaga dhigeen xataa kuwoodii aan ganacsatada ahayn waa lala caydhiyey. waxaa la soo gaadhay xilligii talyaaniga laga caydhin lahaa waxaana hogaaminaysay yuhuuddaas lasoo eriyey gabadh amiirada oo la odhan jiray Donna Gracia ama Gracia Mendiz waxaana gabadhaa qabay hantiilo ka mid a yuhuudda qasriyada ama court jiyuush. kadib markuu dhintay iyadaa dhaxashay maalkiisiiba waxayna hanti badan u hurtay taageerada yuhuudda laga caydhinayo Yurub oo ay siin jirtay jiscinka ay kaga baxayaan Yurubta kale ee ku imanayaan Talyaaniga kadibna ay kaga soo baxayaan Talyaaniga ee ku imanayaan Greega halkaasna ay ka soo galayaan khilaafada Cusmaaniyiinta waxayna ahayd waayahaas gabadha ugu qanisan Yurub. markii ay soo gaadheen Cusmaaniyiintii ay xuduudda marayeen ayay askartii qabteen oo joojiyeen
balse waxa ay u soo saartay fariin ka timi Suldaan Suleymaan al-Qaanuuni oo uu ku tibaaxayo inay yuhuuddaas oo dhammi isaga shacabkiisa ka mid yihiin hadda laga bilaabo. waxay khilaafada Cusmaaniyiintu u ogolaatay yuhuuddii inay si waafiya u noolaadaan shareecadoodana ay siday doonaanba u qabsadaan, waxaana amiiraddaas loo ogolaaday inay ka aasaasto bangi khilaafada dhexdeeda, waxayna aasaastay bangi ay u bixisay bangiga reer Mendis oo ah bangigii ugu horreeyay ee caalamkaba laga dhiso, waana bangiga u horseeday Cusmaaniyiintu inay u xagliyaan dhanka raasamaaliyadda. yuhuudda adduunka ku hadhsanayd waxay u soo dooleen dhanka khilaafada, haddii ay ku xididaysteenna waxaa soo baraarugay hamigoodii ahaa hanashada dahabka caalamka iyo qabsashadiisaba, waxaana markan u dheeraa xaqdi ay u hayeen madaxda Yurub iyo shucuubtoodaba. waxay nacaybkii ku hor bilaabeen Ingiriiska, waxay ku kiciyeen kacdoonkii Ingiriiska ee Cromwell garwadeenka ka ahaa, hal qarni kadibna waxaa ogsaday dagaalkii Ingiriiska iyo Faransiiska ee la magac baxay dagaalkii 9 sano. waxauna boqorkii Ingiriiska William u baahday deyn uu dagaalka ku galo, yuhuuddiina waxay deemiyeen milyan iyo rubuc pound oo dahaba, waxayna dul saareen ribo 8%, waxayna kula shuruutameen inuu u ogolaado inay aasaastaan bangiga Ingiriiska. inkasta oo la moodayo bangi ay dowladdu leedahay, haddana waa bangi yuhuudeed, dhaqaalahoodiina wuu sii labanlaabay bangigaasi. bal aynu aadna dhanka bangigaas Ingiriiska, waxaynu u tagnay mid ka mid a shaqaalihii, waxauna inoo sheegay inay soo saarayaan lacag warqad ah maadaama ay qaadistii qadaadicda dahabka ahi dadkii ku cuslaatay, kadibna ay dadku dahabkaas bangiga iska keenayaan, ruux walibana dahabka uu sito lacag u dhiganta oo waraaqaa uu qaadanayo, meesha uu doonana uu wax kaga iibsanayo, haddii uu u baahdo inuu soo ceshado dahabkiisana waxa uu keenayaa warqadahaas bangiga, sidaas ayuuna dahabkiisii ku ceshanayaa. dadkii waxay saf soo galeen sidii ay qadaadicdoodii oo ay lahaayeen wayna cuslaysay warqadahaas ugu doorsan lahaayeen, waxaana yuhuuddi ku guulaysteen inay khasnadahoodii dahab ka buuxsadaan, dadkiina waxayba ku qanceen lacagtaas fudud ee warqadaha ah, dahabkoodana kalamabay soo bixi jirin bangiga. kadib waxay ku fakreen yuhuuddi oo haddiiba ay dadkii lacagtan warqadaha ah ku kalsoon yihiin, maxaynu u daabici weynay waraaqo intaynu dahab hayno ka badan, waynu dadka waamaahin weynay, ribana ugaga qaadi weynay. kadib intay warqado ay samaysteen dadkii iyo dowladdiiba amaahiyeen, ayay dahabkiina xagga dambe dhigteen. warqadahaas ay daabiceenna waxay dowladdii Ingiriiska ka amaahiyeen 140 milyan oo pound, deyntaasina dowladdii afka ayay 2 liire ka saartay. waayihii ay Yurubiyaanku haysteen Maraykanka ayay mustacmarad kastaaba gaarkeeda u samaysatay lacag u gaara oo u dhiganta hantida suuqa taalla, ayna ku suuqsan jirtay, waxayna ula baxeen lacagtaas colonial scripts. faqri iyo shaqo la'aanna lagama aqoon deegaanada Maraykanka waayahaas, maadaama Ingiriiska deynta lagu leeyahay looga fadhiyeyna waxa uu ku xukumay inay joojiyaan mustacmaradahaas warqadahaas ay samaysanayaan, ayna cashuurta ku bixiyaan dahab. kadib waxay ismaamuladaas mustacmaradaha ka dilaacay faqri ba'an, ganacsigiina uu kacay, waxaana ogsaday kacdoon ka dhan ah gumaystayaasha, maadaama aanay Maraykanku doonayn inay cid wax ka deynsadaan, kacdoonkuna qarash u baahnaa, waxay go'aansadeen inay daabacaan lacag, waxayna daabaceen lacag ay u bixiyeen continental dollar oo ka dhaxaysa qaaradda oo dhan. bilowgii kacdoonkana waxa ay ka gaadhsiiyeen 12 milyan oo lacagtaas ah, dhammaadkii kacdoonkana waxay maraysay lacagta inta laga daabacay 500 oo milyan. kadib waxaa dilaacay sicir barar baahsan oo lacagtii waxba way jari weyday. waxa uu soo gooshay dhanka Maraykanka Xaayim Solomon oo ah yuhuudi hantiilaa oo maalgeliya dadka, waxauna maalgelin bilaa faa'iido ah siiyey aasaasayaashii Maraykanka ee Thomas Jefferson iyo James Madison iyo George Washington iyo kuwo kale oo badan. waxauna dhigta ugu riday khasnajigii Maraykanka ee waayahaas Alexander Hamilton inay samaystaan bangiga Ingiriiska oo kale ah, si ay uga baxaan dhaqaale burburka dagaalkana ay ugu maalgeliyaan, waana lagu qancay fikirkaas oo waxaa halkaas lagu dhisay Bank of North America.